halkudhagyada ogaal reediya ayaa waxaa ka mid ah runta sheeg xataa hadday dacar ka qaraadhahay. naxariistii janna allah ka waraabiye xildhibaan Faysal Warsame Maxamed oo ka mid ahaa xildhibaanada Soomaaliyeed kama mid ahaa xubnihii ugu firfircoonaa ee difaacaya xukuumaddii dhacday ee ra'iisul wasaare Saacid ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho gaar ahaan gudaha xarunta madaxtooyada Soomaaliya maalimadii Jimcaha bisha Diseembar ee ahayd 6 sanadkan 2013 ayaa waxaa telefoon u soo diray xildhibaan Faysal Warsame madaxda dalka si ay kulan ula qaataan wuxuuna deganaa degmada Tale gaarigiisii ayuu soo qaatay oo ku yimid xarunta Villa Soomaaliya oo looga arrimiyo dawladda federaalka ee Soomaaliya dilka xildhibaanka la dilayna wuxuu ka dhacay madaxtooyada dhexdeeda haddaba doodeena caawa ayaa waxay ku salaysan tahay sidee ayaad u aragtaan dilka qorshaysan ee loo geystay naxariistii janna allah ka waraabiye xildhibaan Faysal Warsame Maxamed istuuriyaha reediyo ogaal caawa waxaa marti noogu ah Saciid Dafuujo oo ka mid ah jufadiisa waxaa kaloo khadka telefoonka noogu jira wariye Axmed Cali Yuusuf oo lagu naanaysa dhabar yare aan ku hormaro wariye Axmed Cali Yuusuf bal wax nooga sheeg waxa aad ka ogtihiin baaritaanada aad wadaan haddii aan kaaga waramo waxyaabaha aan ka ognahay baaritaanada aan wadnay naxasanow baaritaanka waxa uu ku soo biishubanayaa xagga madaxtooyada runtii sida aad la socotid ama wararka aan helay ay sheegayaan xildhibaanku waxa uu ku tukaday salaada jimco madaxtooyada dhexdeeda asagoo gaarigiisii wata ayuu meesha soo galay intii uu salaada tukanayay ayaa gaariga loogu xiray waxyaabaha qarxa halkaasoo markii uu ka soo baxay uu ku sii socday aqalka ra'iisul wasaare Saacid uu degan yahay isagoo la hadlay ra'iisul wasaaraha una sheegay inuu salaadii ka soo baxay uu xaqiisa u soo dhaqaaqay labada guri dhexdooda intii uu sii socday ayuu qaraxa ku dhacay marka runtii ayaan daro weeyaan dadka waxay isweydiinayaan ma al-shabaab baa dishay mise dawladda dishay labadaba wax wanaagsan kama soo baxaya waayo waxay noqonaysaa haddii dawladda ay dishayna waa political assassination oo rajadii dawladnimo laga qabay ayaa lumaysa haddii ay al-shabaab dishayna waa nasiib daro oo markaas al-shabaab madaxtooyada ayay ku jirtaa ayay noqonaysaa marka waxa ka soo baxaya runtii wax wanaagsan uma eka wax xun ayay maaragtay ay ku biyo shubanaysaa waayo haddii ay madaxtooyadii ay ku dhex dili karaan xildhibaanadii waxaa hubaala madaxweynahana inaanu baxsanin haddiise ay saraakiishii madaxtooyada ilaalinayay ama nabad sugidii ay arrinkan sameeyeen iyadana waa nasiib daro marka halka ay ku biyo shubato kolley meel wanaagsan ma noqonaysa xasan laakiin baaritaanada way sii socdaan kuwa madani ah inkastoo ay nasiib daro tahay in dawladdii iyo ciidamadii nabad sugidda iyo booliiska intaba ay ka cagajiideen in wax baaritaan haba yaraatee la sameeyo taasoo runtii eed badan usoo jiidaysa xagga dawladda waxaana madaxweynaha dawladda federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud aan ugu baaqaynaa in baaritaan dhaba la sameeyo wixii ka dambeeyey halkaana kolley madaxtooyaday ku jiraan hadday al-shabaab madaxtooyada ku jirta tahay iyo haddii maaragtay ay yihiin qolyihii nabad sugidda ahaa oo markaa iyaga caadifad ay qaaday intaba in maxkamad lasoo saaro si aanay mas-uuliyiinta dambe ee dawladda aanay ugu sameyn falal noocaas oo kale ah waa hagaag Axmed Cali Yuusuf wax yar iigu jir khadka kulan ballaaran oo maanta ka dhacay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland isla markaasna ay isugu yimaadeen cuqaal iyo waxgarad iyo maamulka gobolka Nugaal ayaa dilka xildhibaan Faysal lagu eedeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa ku tilmaamay marxuum Faysal inuu ahaa shakhsi si weyn ugu dhaqanka dastuurka dalka sidaa daraadeedna uu u galabsan in si cadaalad ah dalka lagu maamulo
wuxuu soo jeediyay gudoomiyuhu in baaritaan qoto dheer lagu sameeyo haddaba stuudiyaha radio ogaal caawa waxaa nala fadhiya Saciid Dafuuje oo waxgarad ah aqoon-yahan ah kuna hadlaya magaca qoyska naxariisi janna Allah ka waraabiye Faysal Warsame Maxamed Saciid Dafuuje ku soo dhaw idaacada radio ogaal waa ma santahay xasan walaal Saciid akhbaaraha idin soo gaaraya xogta hoose ee qoys ahaanta idin soo gaaraya bal wax nooga sheeg bismillaahir rahmaanir rahiim xasan oo horta intaanan arintaas gelin marka ugu horeysa aniga naftigayga waxaan tacsi u dirayaa qoyskii carruurtii iyo eheladii uu ka dhintay oo ka geeriyooday xildhibaan Maxamed Warsame Maxamed Faysal waxaan leenahay isagana Ilaahay ha u naxariisto si xaq darro uu dhintay oo gardarra lagu dilay marka waxaan leenahay isagana Ilaahay naxariis ha ka waraabiyo dadkii iyo eheladii uu ka geeriyooday Ilaahay samari iimaan ha ka siiyo بدل خير قبان الله كسي تعسيداس markaan ka baxo xasan oo runta markaan ku sheego horta Faysal hada ninku ahaa ka isweydiin mayno horta kala hadli mayno waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa war dhafoor buu ku yaalayo warkiisa waa la hayaa baarlamaanka Soomaaliya uu joogayna dadnimadiisa iyo shakhsiyanimadiisa maanta Soomaali kama qarsoona dadka reer Puntlandna waa ay yaqaanaan oo madaxdoodii iyo odayaashoodii baa ka hadlayay oo qofka rabaaraadi uu dhaysan karaa annaguna ka ehel ahaan waanu nuqinay Faysal qofka uu ahaa waxayna kamid ahay sababihii baarlamaanka loo geeyay Faysal annagu sida xogta runta ah aanu ku hayno welina wax badan baa noo dhiman Faysal dilkiisa wax shakiyo oo anaga nooga jira in ay madaxtooyadu lu ku leedahay ma jiraan anigu midna lama yaabani oo Faysal in madaxtooyada lagu dilo hore baan u sheegnay Muqdisho inay caasimad Soomaali u ahayn anu ra'yigayga ma qariyo Faysalna Allahu naxariistay saasoo ahaa tadahaana saasaanahay anagu waan ku yaqaanaa inaan waxba runta cidna kala leex waxaan sheegaynaa Muqdisho waabay ahaan jiray caasimadda Soomaaliya caasimad dambana Soomaali uma aha waxa international community waa ay dhoobayaan oo isku dayayaan waxba kama jiri doonaan caasimadda Soomaaliya waayo way caddahay caasimada Soomaaliya shalay anaga dadkeygana waa lagu laayay waa lagu dhacay hantidoodii dhibaatooyin badan baa lagu geystay maantana waxaad aragtaan dawladnimadii Soomaaliyeed oo raadinayay oo godka ku dhacday inaan wali nimanka magaalada Muqdisho joogo villa Soomaaliya fadhiya in aanay ilaa iyo hadda diyaar u ahayn Soomaali inay dawlad noqoto umadnimadii Soomaaliyeed ay soo noqoto in ay niman dhaqaale ku doonaya oo raba inay dhaqaale ku xadaan oo ku tuugeystaan maahane niman sharaf iyo wanaag umad Soomaaliyeed u haya inaan ahayn Faysal waxa lagu dilay madaxtooyada warar hoose oo badanna oo anagu aanu helayno oo aanu aad xamar u warqabnana Faysal isagoo badqaba oo baabuurkiisa badqaba oo galay madaxtooyada wararku sida ay noo sheegayaan nin sarkaal ah oo madaxweynaha la joogay oo faamiligiisa baabuurka ka haystay isaga baabuurka la baxay isaga soo celiyay hadda waa iska garanaysaan marka baabuurkii markii Faysal uu qaatayna waa la qaxay taasi marka waa arrin iska cad dilitaanka Faysal oo ma aha wax maartay laakiin waxaanu sheegaynaa oo maanta arrin halkaan ugu sheegno ummadda Soomaaliyeed inaanay dhici doonin inta dadka la iska laayo oo mas'uuliyiinta dadka ummaddu ay soo dirsadeen danihii Soomaaliyeed inay wax ka shaqeeyaan inta la dilo in banaanka la iska maray inay dhici doonin xasan iyo nimanka dambi jadiidka oo isaga saaxiibada la dadka Soomaalida ahi waxay caado ka dhigteen qofku markuu dhibaato geysto qofkii marka laga hadlo leeyahay qofka dhibaato geystay in qabiil loo saaro leeyahay reer baa loo dilay anagu waxaan sheegaynaa dambi jadiid nimanka ahi Faysal iyaga dilay Faysal dad buu leeyahay ka dhashay mana ka hari doono meel kasta adduunka aynu noqotana mana u hari doono mana ka hareyno waana adduunka dhan waa ka dacweynayna Soomaaliyana runta la isla gaariya ee dadka inta la dilo dadku daneer ma noqon doonaan iska dhinta Faysal la dhigiisu meel cidla kuma daadan doono hadii rabiidno ummadda Soomaaliyeedna war farxad leh baan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa inaanan marna raali ka noqon doonin dadka Soomaaliyeed oo matalaya ummadda Soomaaliyeed oo gobolada kala keebi inay ari la iska qalqasho inay ku noqdaan xawar ma ogolaan doono arrintaasna
وبلن هدي ربي إدمو فيصل أرنتي صمد ما دونتو وحين نقول دونتا فيروس سوماليا كوتشوه 10 يكون عبرقات هدي ربي إدمو وهجاج هذا يلا ما صنتها سعيد فوجه wararka aanu helayno ayaa waxa kamida naxariisi janna Allah ka waraabiye Faysal Warsame Maxamed inuu madaxtooyada yimid asagoo bad qaba salaadii jimcaha uu ku tukaday sida la wada ogsoon yahay madaxtooyada markuu ruuxu imaanayo ama baabuur ha ku yimaado ama asagu si kale ba ku yimaade wuxuu soo marayaa ilaa iyo dhowr checkpoints ayuu soo marayaa ama isbaarooyin lagu jeegareynayo qaarkoodna ay Amazon leeyihiin kuwana ay dawladdu leedahay dhowrkii Amazon wuu soo dhaafay kuwii dawladdan wuu soo dhaafay baabuurkiisuna caadi buu ahaa haddaba shaki kuma jiro shirqoolkan asaga lagu khaarijiyay naxariistii janna Allah ka waraabiye Faysal Warsame Maxamed inuu yahay mid laga maleegay madaxtooyada dhexdeeda waa macruuf banaanka taala sababtoo baabuurku hadday markii hore wax ku rakibnaayeen intaasoo checkpoints ma uusan soo dhaafeen waxa doodeena caawa kooban waxay ku salaysan tahay sidee ayaad u aragtaan dilkaas iyo falka waxashnimada ah lagula kacay xildhibaan naxariisi janna Allah ka waraabiye Faysal Warsame Maxamed waxyaalaha kale ee tuhunka iyaguna abuuray ayaa waxa kamida gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari maanta markuu hadlayay haba yaraatee laguma soo qaadan dilka laguma soo qaadan lama dhihin guddi baa loo saarayaa baaris samaysan lama dhihin dawladdu way ka aamustay oo wax aan maartay baaritaan la galay haba yaraatee ma jirto wax guddiya oo xildhibaanka dhintay loo saaray ma jirto waxa aaskii xildhibaanka naxariistii janna Allah ka waraabiye Faysal Warsame Maxamed markii la aasayay gudoomiyaha baarlamaanku ma uusan soo xaadirin madaxweynuhuna ma uusan soo xaadirin kulli wax walba qabiil bay ku salaysantay dawladdu qabiil bay u qaybsanto waa 4.5 naxariisi janna Allah ka waraabiye Cismaan Caata markii la aasayay gudoomiyaha baarlamaanku uu joogay madaxweynuhu uu joogay maxay ku kala bedelan yihiin xildhibaanada Soomaaliyeed miyayna ahayn sidee ayaa dareemaysaa Saciid Fuujow adigoo jifadii kamida arrimaha markaad maqasho maxaa kugu soo dhacaya xasanow adoo waa iska cadaalay waxa weeye qofku uu dilay isaga dilay kamana qayb galayo ma garanaysaa duugtiisa waayo isaga barribay uu dilo waana uu dilay duugtiisana kama qayb galay taasi waxay ku tusaysaa inaan nimanka Villa Soomaaliya fadhiya inay mas'uul ahayn Soomaalina ay waxa mas'uuliyada u haynin anagu waxaanu ogsoonahay oo Faysal ilaahay u naxariistay dadkii uu la soo xiriirayay emailladii uu soo dirayay maalmahan dadka u sheegay in si toos ah loo handaday oo loo sheegay in la dilayo waan la soconaa arrimahaasi waana wax evidence oo run ah oo aanu hayno waana uu soo sheegay in la dilayo waana ogaa in la dilayo waana loo dhaartay Xasan Sheikh hadda inuu dilay isaga iyo dawladdiisu inay dishay meesha lagu dilay baa cadaynaysa waxa cadaynaysa sida ayaan aaskii u qayb gelin baa cadaynaysa waxa cadaynaysa sida ay waamuseen laakiin يعني حشود حتى ماله بس كذا أديك مسؤولية وحاس يعني وضد أنا حتى وحليا بناهي وحال هذين هي terrorism بقى سوماليا الورد قالوا يالله terrorism كم مكان وكب حسن دم شديد حاجة شوه حدو terrorist سوماليا شو number 1 terrorist وحاء دم شديد حسن بانا مضحوه أنا ما أمن سني إني حسن يقولني إني كلا دوينهن أو ما أمن سني وحنا أمسنا هي ولي حسن باحون أو خطر بدن وايو وحو فرديا ماشي دولة الصومالية اللي جمع مليه يسووا terrorist مضحوه مركا وارين لا ياب له ومدى الصومالية لأن أي لا يابنت هاي لكن وكل علين فيصل مقال كيسو قدنتي أو قفهام بقدنتي لكن أرنتيسو ما هردون تقدر بين. وهجاج أنكون نقضى وري أحمد علي يوسف أو خدك كشرة أحمد درين كاجو كوجهن أخبارها هذا أنا مقلة إنه سدا يدوركتها.
xasanow runtii marka la eego xagga falanqeynta siyaasadda waxa ay u muuqataa inay tahay gabagabadii dawladda xasan sheekh maxamuud inay bilaabatay waqtigii ay soo dhammaanaysay waxaana taa ku caddeynaya waxyaabo fara badan oo hadda socda ama dhacaya waxa ugu horeeya waxa ay tahay dilka maxamed faysal ayaa waxa uu ka dhigayaa dawladdii mid iyada laftigeeda geliyey dakane oo ay inay la soo wajahaan waxyaabaha ay doonayaan in ay gobollada kale kula macaamilaan sidaasi lamida haddii aad la socotid xasanow waxaa jirta sida hadda Saciid uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha inaanay ka soo qayb gelin amaba aanay barnaamijkii baarlamaanka maanta lagu furayay aan lagu soo qaadan waxaa jira waxyaabo xaaraan ah oo ay isla og yihiin in la wada sameeyo haddana aan shaqaynin haddii aan taas soo bandhigo waxa weeyaan xasanow waxaad og tahay in lagu heshiiyey in 6 gobol ee koonfur ka xigta magaalada muqdisho in laga sameeyo maamul goboleed xasan sheekhna waxa uu soo saxiixay heshiis uu ku sameynayo maamulka Jubbaland Ahmed Madoobe madaxdu yahay waxa aan la garanayn xasan sheekh ma heshiiskii waxa uu ka baxayaa sababo uu ku soo saxiixay waxa uu ka baxayaa heshiiska uu la gaaray Jawaari 6 gobol lagu sameynayo waxaan ogsoonahay dawladda federaalka ah inaanay wax wada shaqeyn kala dhaxayn hadartan maamul goboleedka Puntland waxaan ogsoonahay gobolada gobolka Hiiraan maamulka loo sameyn lahaa inuu hortaagan yahay waxaan ogsoonahay dagaalada ka socda magaalada Jowhar in ay afka ka qabsadeen oo halkii maamul looga sameyn lahaa ay meeshii ay ku sii daabulayaan hubkii dawladda waxaan ogsoonahay gobolka Shabeellaha Hoose dagaalada ka socda in wasiiradii dawladda ay wax ka abaabulayaan marka aad isku fiiriso waxaas oo dhan aad ku darto riditaankii ra'iisul wasaaraha sida sharciga ka baxsan lagu riday oo keentay in lagu dilo maxamed faysal gunaanadkeedu waxay noqonaysaa gabagabadii dawladda xasan sheekh oo madaxda ka yahay taasoo ayaheeda ay noqon doonto Soomaaliya haddii ay garato qaldaadkaas oo dhan in la galay ee la saxo mid ay Soomaali isugu iman karayso amaba ay noqon karayso Soomaali caadifad intay kala qaado ee halka ku burburto dawladdii 20 sano la sugayay wasiir darada maanta jirta waxa ay tahay magaalada Muqdisho sida uu Saciid Fuuji u sheegay markii hore taariikhiyan waxa ahayd magaalo qofka fursad uu ka yeesho uu ka heli karo inuu nolol ka samaysto dadkii ugu horeeyay ee magaalada yimid hadda eegto oo markii dambe taajiriinta Soomaaliya noqday iyagoo socdo ayay soo galeen waxna ka tabcadeen magaalada Muqdisho hadda waxa ay u soo bedelantay inay noqoto meel qofkii aqoonyahanka ahaa waxgaradka ahaa wadaniga ahaa ee doonaya dadka dhibka iyo mashaakilaadka ay ku jiraan sidii looga saari lahaa dawladda Soomaaliyeed loo raadin lahaa in lagu dilo aqalkii madaxtooyada Soomaaliya taa waxay keenaysaa inay ama Soomaali intay kacdo ay garato oo dhiigga Faysal uu noqdo mid ay Soomaali isugu iman lahayd ama ay noqoto mid ay Soomaali intay wax ku garato ay ku kala tagi lahayd waa hagaag waxaan dhageysanaysaa ogaal reeriyo mawjada dhererkeedu yahay 88.9 FM aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Axmed Cali Yuusuf dhageysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheeg sidee ayaad u aragtaa dilka Faysal Warsame Maxamed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور شلون بتسألوه؟ أصلاً إنا لله وإنا إليه راجعون والمواطن ممبر بارلمان كأخ دينتي قاعد يصدر بلدنا كدينتي. كنتي وحوى نحسن معها وحسن صوتي إنه بيجي نحكوا هذا بالله معه عندما نبضن بالدري اللي هو هنجباء هذا لك سؤال شو عيتاي ورمحات هلا يمكن عندي الشيء إلا بعرف هذا محاكرة على ولكن ويشيء عند المغربي إنه يري وحاول كسب حي ملحتويده وحده كسر الفرع من يسقط ما درن كذا وأسكسر عليه يفعله هذا أنا أحد حول الدفاع لكن إن واحد كان مرة المسلمين المركز المسلمين الله عالم لا لا معلم كاتي الذي على كورابيو وحو رايسن معها مدة كلامته ملايين مقدشو
حتى ضد ما كان واجي ونرجع إلى كهذا يعني مش عاصمة الصومال بتكسر المواد الصومالي أسرع أي مجال يستحي ومجال وجود كبلد ومجال الدكة كله أي يبعثنا ودن كالسعودي يكون عايشين إلا فيريو إلا نحرسته إلا فيريو أي دنيا أي الصومالي لو باهي ويدعي سوق ولا ينتو ما إلا أيدي مجالهم لأنه الدجال لكن واحد كثير ودك كله واقع يعني وعلى نكاسي بنتين الله نحرسته دولتنا وحلو نقطة إن يشفعوا في هذا إلا نحب دك درمجيزة إذا دمنا في عروستي وعيرته إذا نقدرنا إلى دكنا يديني اللي نحن أنا سيرهم الشخصيات ترجع لك والدك مجال هذا وهجاي أنا ولكن سلا يو صومالي على هاي ولا جهات وهجاي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آدي أيضا ما سنتهي الدكتور شومبي وحلو باهي هي بي talada ugu haboon waa in xamar laga guuro xamar in laga guuro tala ay ku dhaanto haba yaraatee ma jirto sababtoo xamar caasimad ma noqon karto xamar dhiig islaam baa ku daatay maalin walbana uu ku daadanayaa civil warkii dhacay 1991 muddo dhowr iyo 20 sano ayay umadu degidaadahay xamar waxay dhaawac badan bay aan soo kaban karin ayay leedahay waxa loo baahan yahay caasimad kaleeto oo umada Soomaaliyeed ku wada noolaan karto kuna badbaadi karto xildhibaanaduna ay ku badbaadi karaan muwaadinka Soomaaliyeed oo umada Soomaaliyeed shaqo u qabanayana oo naftiisu uu ku badbaadin karo laakiin sameel ruuxa markaas xildhibaanka jooga loogu hanjabayo oo xildhibaankiina hadii uu xaqi ka hadla assassination loo sameeyo meel lagu noolaan karo ma aha waxaad naga soo tiirsan kartaan khadka telefoonka ee 456 laba afar todoba labo sida fuujisada ayaad aragtaa horta marka ugu horeysa walaalkay Shomba waxa leeyahay mahadsan tahay runtii qofka bini'aadamka qalbigiisa Ilaahay baa og laakiin anigu hadalkaaga markaan qaato in wadan oo fiican oo Soomaaliya oo walaal ah baa tahay sidii wanaagsanayd baadna sheegtay laakiin waxa rabaa inaan kuu sheego anigu Muqdisho dadkeeda dhibaatada haysata kuma faraxsanin aad baan uga xunahay وانا runta waan ognahay umada Muqdisho degani dhibaato aad u fara badan inay qabto shacabka laakiin haddana waxa ogsoonaata umada Muqdisho degan dhibaatada waxa ku haya waa nimankii iyaga ka dhashay oo siyaasadda ku jira oo magaalada xamar fadhiya oo dadka Soomaalida kana leeynaya iyagana fakhriga iyo dhibaatada iyo dilka iyo xabada joogtada ku hay anagu shacabka Muqdisho jooga uma qabno colaad oo walaalahayo dhibaatadana waa ugu ducaynayna Ilaahay baan uga baryaynaa Ilaahay dhibaatada ka saaro laakiin dhibaato waxa haysata iyaguna ayaan ka bixi karin iskala saari karin oo ay ku hayaan niman iyaga dhigooda ka ganacsada oo tuuga ay ku hayaan oo meesha u fadhiyaan oo aan welibana aan ahayn tuuga xataa kaligoodii international communities ka inta been u sheegay oo lacag ka sameeyay dhaci iyo boobkii umada Soomaaliyeed ay ka sameeyeen xiriir badan oo tuugaysiya meel badan ku yeeshay oo dadka dhibaato ku haya baa dusha ka saaran shacabkaasi Ilaahay u baryayna waana dad walaalahaya anoo shacabka wax loo qabno waxa aanu ka hadlaynaa waxa weeye waa nimanka noocaasa magaalada Muqdishona runta markaan ku sheego anoo Muqdisho aan uma diidanin laakiin Muqdisho situationka ay ku jirto iyo sida ay tahay iyo sida nimanka hadda maanta ugu tugtugroon u dhaqaaqaya ay dadkooda iyo ummadooda midna uga naxaynin ay Soomaalina waxba ugu rabnin waa sida Xasan uu sheegay Muqdisho umada Soomaaliyeed degan waxaan oranahay walaalayaal iska soo guura oo meelaha kale Soomaalidu ay degan tahay taga inta Muqdisho xal looga helayo waa walaalahayo dhulkana waa leeyihiin waa dhulkoodii meesha rabaan bay ku noolaan karaan waxaan leenahay isaga soo taga dhoraad idima qabno dadkayga baa tihiin waan jecelnahay laakiin nimanka meesha fadhiya oo ku bahaloobay NGO-yada iyo lacagaha tuugada ah meesha lagu cuno oo iyagana dhibaateynaya Soomaalina ay hostage u tahay oo ummadii Soomaaliyeed oo dhan hostage-nimada u haysta u soo celiya meesha marka u soo celiysaan حلو لو هليا isaga soo taga anigu dadka intaasaan leeyahay laakiin xamar maanta caasimad Soomaaliyeed ma noqon karto mana istaahisho waqtiga hadda ah waa dambe oo Soomaali ay nabad noqoto dhulku dawlad u yeesho hadii loo soo noqonayo umada Soomaaliyeed u soo noqonayso waxba kama qabno laakiin maanta Soomaaliya caasimad ma noqon karto anagu taasaan leenahay
وانا كجور حلقة إلا ذا ولا يجور dhagaysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga shay fikrigaaga soo jeedi سعود بالله ولا الله سعود سلام يا لندن هيا حسن واق سلام عليكم بحوينت راديو اوغان وكا قادم ولا إلا لله وإنا راجعون وحنا إلى تعطي ولالك محمد ورسبه محمد فيصل إلى الجنة كورابيو عيال كيسي iyo xaaskiisa sabriga iimaha ka siiyay iyo walaalihiis lamaan reer Puntland oo dhan aad baan uga xumaatay ku dhacday iyo xilbaanka sida loo dilay sabri iimaan ilaahay naga wada siiyaan lamaan shacabka Puntland oo dhan iyo familkii iyo kulli iyo xaaskiisa ilmihiisa intaasaan uga baxay walaalo dhagaysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga shay fikrigaaga soo jeedi walaale waxa la yiraahdaa Zainab Sadow walaale waxaan tacsi u direynaa marka ugu horeysa marxuumka iyo ehelka dhintay ehelkiisii iyo baarlamaanka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed intii dareen leh ilaahay waxaan uga rajaynaynaa marka ugu horeysa jannadii raxmas geeyo marka xiga waxaan yar ku darsanayaa tacsidaas kadib dhibaatada jirta oo inagu hadda waxyaabo badan baa meesha looga wada hadlay guud ahaan caasimadii iyo arrinta waxaan filayay inay tahay tacsida marka hadaynu ka soo noqono wiilkan sida uu ku dhintay sida aan media ka maqlayno waa arrin aad u foolxun waa arrin tiiraanyo hor leh dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ku beeraysa waa arrin kalsoonidii iyo nabadii inuu qofku ku noolaan karo si xor dalkiisa ugu noolaan karo shaki gelinaysa waa arrin runtii aniga qof ahaan dareenkayga aan u dareemay inay wax xun meeshaas ka dhaceen sababtu waxay tahay waxaas oo dhan markii ay dhacday hadii ay si accident ku dhacday waxa aniga qof ahaan gabar Soomaaliyeed ahaan dareenka ay gelisay inaan baarlamaankii oo 240 intaas ah oo wiilka markuu hadlayay wada joogay ay si niyad sami ah ay uga qayb qaadan waa hadii sida la leeyahay wixii xun baxaawale la inagu qof kasta wax kasta markaynu sameeyno waxaynu saarnaa shabaab saarnaa hadaynu siyaasadda laba qof isku fahmi weyso wixii dhibaato dhaca waxa la leeyahay shabaab baa dilay hadii ma aragtay maxaan ku rahday dariiqaas malakumuudka helo shabaab baa sameeyay marka shabaab waxay noqotay magac la isticmaalo oo waqti walba iyo goor walba loo isticmaalo marka waxa aniga qof ahaan aan hadda dareenkaygu u yahay sababta aan uga arki weynay madaxdii dalka haday baarlamaankii ra'iisul baarlamaan noqoto haday madaxweyne noqoto haday parliamentarianki noqoto haday wasiiradii intooda badneed noqoto dareenka aan u arki weynay shaashada si wada jir ah xildhibaanka loogu aasi waayay qaran loogu sameyn waayay waxa kale tiiraaye aad u foolxun ah in isbitaal dhexdiis lagu duugay waa arrin muruga leh waa arrin laga naxo waa arrin su'aalo badan oo runtii keenaya su'aalo inay meeshaas galaan keenaysa waay xildhibaanka loogu duugaya isbitaal dhexdiis waay maxaan ku irahday madaxdii uga qayb gali weysay waay questionskaas oo dhan waxa loo baahan yahay inay galaan malafka xildhibaanka baaritaan oo heeg ah waa in la geeyaa waa in arrintaas halkeeda la ogaadaa yani xataa ka hadalka yani aniga ma garan karo su'aalaha aniga hadda qofna ma daniyo qof islaam aan ahay hebel baa dilay hebel baa geliyay ma dhihi karo laakiin su'aalo badan oo istiiminaya waxyaabo badan oo daldaloolo ah oo dhici kara inay ma aragtay talbiis ay jirto ayaa muuqda waana dareen xoog leh marka anigu waxaan ku talinayaa haddii caasimadii ay heerkaas marayso haddii markii la rabay dadka in la soo xareeyo oo la isu keeno oo la walaaleeyo ay qofkii maanta hadla subaxdii madax xabad laga saarayo ama qarax loo gelinayo waxaa le ardullaahi waasic wey wadanku waa balaaran yahay dadka ma dal la'aan baa haysa ma guri la'aan baa haysa ma hooy la'aan baa haysa haddii dastuurkii la bedelay haddii dadkii nabad ku heleen haddii xildhibaanadii 3 kun ay qaataan qaarna ay transport ku bixiyaan qaarna hoteelo ay ku ijaartaan haddii maxaan ku iraahdaa haddii lagama hadli karo maalin dhan haddaad noo daartaan raadiyahaas ogaal wax badan baynu hadli karnaa waxyaabo badan baa dadka Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay in runta la isu sheego oo baata kiyaara ama jidselunga yiraahdaan
وحاوي أرنتكن إن لجاه الله يضل ليس على سنين يضل ليس بسنين لكن إن ليسوا شيء إن ماشى خلل سياسي وكجرو إن ما في هرلا يكد الله عليه وضنكي إن قد كسياسة دي وضنك الصومالية رجدة في عنها أي قد كيك شيء إن دتكو نول بدجان بوليه الدجان كيسي هدقو نبضها كوكلو dadka Soomaaliyeed markii ciidamo loo dhiso la qarameeyo ciidamo qaran la yiraahdo marar badan waxaan maqlaa ciidanka Soomaaliyeed ciidan magaalo laga dhisay ciidan qaran Soomaali ma noqon waa in gobolada Soomaaliyeed gobol walba ciidankiisa u keensadaa waa in gobol walba xamar waa gobol weey gobolkaas waa in horta dadkeena ay diyaarsadaan gobol walba dadkiisa u diyaarsadaan markaas ka bacdi dawladdu wax Soomaali wax la yiraahdo marka la isugu yimaada hadda waxaan qabaa haddii sidaan ku socoto arrintu inay fashilkii dib loogu noqonayo walciyaadu billah ilaahay kama rajaynayna laakiin waxaa loo baahan yahay dadka u dhashay ama faysal dadkiisa ka mid ah waa inay ka isfajiyaan waa inay isku duubni muujiyaan waa iyo intii Soomaaliyeed wax garanayso gobolada kale ku jiro dareen Soomaalinimo leh inuu nin walba horta aasaska gobolkiisa ka soo dhismaa كبعد اللي يسوي ماذا أديك لسان ومدحر أدي وطا أو واحد وطا شرعيا مركز هالك اللي يسوي ماذا مركز أيا واحد أساس مكرته دولة سوماليات أو لسان أو لغة هذا كتاعن أو أمضوا أي أسمان تهاي مركز نين أوسنين كلو عبجولين كاس أيا عاصمة ماشى نقولنا يستمركها أو لغة أمان هلايو أو عندك كمان حلقات توجد وجريها madaxtooyada iyadoo lagu dhex jiro baabuurta la isku qarxinay markaas ayaa marka laga wada hadlayaa aniga waan ku dheeraaday halaha layga ahada laakiin waxyaabo badan ayaa miiska saaran oo loo baahan yahay in dadku ka wada hadlaan waxa ka wada hadli karana afar siyaasi oo hunguri raaca oo hurdur raaca looma baahna waxa loo baahan yahay in dadku ay mustaqbalka iyo aayatiinka dadka ay matalhayaan in ay ka hadlaan وانا إن قبيل لجو بيسكرين قبل يدجان لنا الدجاج سومالين أي حساب تنتاس ولست واحد حساب العام تيجدت كان إسكيا أحي يبقى كبر بيكين إيسا سومالين هرقوا وذيش جلال بيقول إيسا وكب حيا رالها اللي هذا رجينا ولا هاللي دراد ضد الصقري وحكرنا أمسوقرين وحال الصقري خلل كجير إنه رجلي هاي wadanka dumar haloo dhiibo dumarkuna waxa way xisaabtamahayaan gambar bay isu qaadanayaan funtina ma kala maarmahayaan waana la xisaabtamaya xisaabana lagu kala baxaya laakiin sida lagu ma shaqeyn karo lagu ma socon karo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum wasalaam warahmatullahi wabarakatuh aad iyo ma hasantahay Zainab waxaad maraysaa waayahan xilliga adduunku inuu isbedelay dumarka ayaa aad iyo aad gabadha hadalkeedii xigmad weyn buu lahaa raggiiba baradheer waxaan ku soo dhaweynayaa Zainab hees cusub oo xalay laga qaaday xafladii loo dhigay ayidada ahayd Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole heeskaas magaciisa waxaa la yiraahdaa Dadow Geesiga Cishada heeska midihiisa waxaa alifay Faaduma Cali Nakruma ayada ayaana qaadaysa laxankana waxaa sameeyay Alas Muuse Cabde asaga ayaana la qaadaya heeskan wuxuu kaydka heesaha ee radio ogaal soo galay caawa ee dhageysi wacan
تصور مغداك وشيا فرن بارك عسكري درجة حلو إلى الشدر كانركا الدفاع دقبانركا عسكري درجة حلو إلى الشدر كانركا الدفاع دقبانركا مركله حداته مركله عدل ما عشدا حداته مركله حداته مركله عدل ما عشدا حداته مركله حداته مركله عقل ما عشنا وهاجاج وحنا رئيسنا سنوغال راديو موجودة داركيدو yahay 88.9 FM سعيد فوجه maxaad ku soo gabagabayn lahayd xasanow marka hore waxaan u mahad celinayaa walaashay Zainab sidii wanaagsanayd ee dadnimada lahayd iyo waxgaradnimada oo ay uga hadashay arinta Soomaaliya ka jirta maanta waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkeygii hadal aan kula dardaarmayo Puntland
iyo Jubbaland iyo dadka Soomaaliyeed oo wax garal ah oo gobolada kale Soomaaliyeed matalaya xildhibaanada ka jooga magaaladaasi Muqdisho waxay Soomaalidu tiraahdaa ninkii khayrkii loo xiray oo soo qoysa adiguba awal xataa gabasho baa jirtay oo qofka inta beelaha lagu dilaa waxa la oran jiray shabaab baa dilay runtii marka idin sheegana deerow ka soo bilow wax shabaab leeyahay ma jiraan shabaabka iyo nimankan meesha joogay waa soo shaqeeyaan shabaabku waa cudud ay ku shaqeystaan oo qofkii ay rabaan inay dilaan ay u isticmaalaan oo ay ku dilaan shabaab gobolada kale oo Soomaaliyeed banaanka la iska marshi goboladan wuxuu banaanka looga marin waayay waxa weeye sabab bay leedahay sablaan ma marka waa dadka u dila dadkan meesha ku gaamuray oo abeesooyinka oo ku koray NGO-yada oo magaalada Muqdisho ku koray abeesooyin kaasa adeegsada oo waa wax dadka u dila waxaan leenahay magaalada Muqdisho nabadgelyo kuma haysataan dawladnimo Soomaaliyeed kuma haysataan ra'yigiina Soomaali ka qabtaan kama hadli kadaan Soomaaliya haddaydan marna Soomaaliya inuu dagaal dambe ka dhaco oo sokeeye laakiin isaga soo taga oo dadkiinu ku soo noqdaan leenahay anagu taas aynu kula talanaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وهجاج آدي آذي ما هصنتها سعيد دفوتة وحان آذ وحنا هيددوينها بقرالك جارية خطك التلفن ككوتشرة إنه نقضى ما ذي حلق ضده وانيقو حسن عبد الله عمر كراتيه oo idin la waa inuu toddobaadka dambe hadduu allaha awoodana ogolaado